munaasabadani oo ahayd mid soo dhaweyn ayaa siyaasi Ibraahim Aadan Awqoobey oo kamid ah siyaasiyiinta reer Somaliland isla markaana waqti xaadirkan ku maqan dalka dibadiisa gaar ahaan Mareykanka waxa uu casuumad afro ugu sameeyay gudida samatalis ee cusub ee beelaha Garxajis. xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay hogaanka iyo waliba xubnaha gudidaasi. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida beelaha Garxajis ee samatalis, madax dhaqameed, dhalinyaro iyo xubno kale kuwaas oo u mahad celiyay isla markaana soo dhaweeyay casuumadda afurka uu u sameeyay siyaasi Ibraahim Aadan Awqoobey. waxaana ay yiraahdeen waxaan u mahadnaqayaa beesha ragabtigay gaar ahaan siyaasiga weyn ee Ibraahim Aadan Awqoobey oo casuumadan caawa u fidiyay gudida samatalis waana casuumadii labaad gudidan loo qabto. ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu halkaa ka sii wado. gudida samatalis waa la sheegay waxay u taagan tahay waxay qabanayso waa samatalis waa ururiya Garxajis bay ururinaysaa, waxay ururinaysaa Somaliland, waxay ururinaysaa dadka oo dhan ayay samaha ku ururinaysaa insha Allah taala. ilaahayna la garab qabto. aniga dhowr farxadood bay caaway tahayo mar waxa farxadaya in reebtayna casuumay casuumadii labaad yeeshay. waxaan kale u mahad celinayaa cidda halkan isugu keentay bifadlilaahi oo inagu casuuntay. ujeeddadu waxa weeye inaan u mahad celinno siyaasiga weyn ee Ibraahim Aadan Awqoobey oo halkan caawa casuumadda inooga fidiyey gudida casuumay kana mid ah qurba joogteenna. waxayna daaran tahay inuu gudida u muujiyey taageero isaga iyo ragga la midiba, isagoo sida uu halkaa boodhka ku taalla uu sheegay inuu ka turjumayo beesha Isxaaq Carre. mahadda koobaad waxaa leh ilaahay baanu mahadnaqaynaa. mahadnaqa labaadna waxaa leh siyaasiga weyn ee halkan inagu macsuumay suuqeen keenay, siyaasi Ibraahim Aadan Awqoobey. waa siyaasi caana. habeenkii maalintii layna doorto gudida maalin labaadeedii buu ina soo taageeray, inoo soo hambaliyeyna waan daawadeen. aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa. halganka wanaagsan iyo taageerada wanaagsan iyo soo dhaweynta iyo macsuumadda intaas ku kaaya raacisaba aad iyo aad baad u mahadsantay. taa markaan ka gudbo, ciddii wal ee Garxajisa cid walba waanu u baahanay soo dhaweynteeda iyo wada hadalkooda iyo iswarankooda aan iswareysano. cid aan loo baahanayn rag iyo dumar mid daba jooga iyo mid guda jooga cid walba waa soo dhaweynayna. salaan kadib xafladan soo dhaweynta ee uu u sameeyay gudida Garxajis ee samatalis siyaasiga weyn ee Ibraahim Aadan Awqoobey aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa annaguna. midka kale reeruhu waxa dadkuna arinku ka kacaa geela dhaxda uga kacay baa la yidho. Isxaaq horta waxa weeyaan waa adhaxda Garxajis. adhaxda Garxajis weeye. adhaxda Garxajis haddii ay nabad ka talisana nabaduun baa socota, haddii ay colaad ka talisana colaaduun baa socoto. waa adhaxdii oo hareeraha way u fidaa. allah inteena oo dhan abuuray, inta kalena abuuray. allahaasaan u mahadnaqayaa. waxaa kalena u mahadnaqayaa ninkaa ina macsuumay ee beesheenna ah ee qurba joogga ah Ibraahim Aadan Awqoobey. isagana waanu mahadnaqayaa. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala. sidaa la sheegaya anigu ma aqaana waxaa la yidhi waa reere asalkaa dee maxaan ku dhaha awal horeba u lahaa yacni dhaqanka u lahaa arrimahan oo kale. isagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa iyo dunyadiisaba alla ha barakeeyo oo bir rabadaane. waxa aan ku darayaa har iyo goor ninku haddii uu culimo sheegto aw la yidhaaho wuxuunbu isagu shaqo ku leeyahay ducada iyo meelaha caynkaasabuu shaqo ku leeyahay. marka hore acmaashan aynu samaynayno soon iyo salaad baa Allah naga aqbalo. innaga iyo inta kale islaamka ee soomaysa ee salaadasa ilaahay ha ka aqbalo subxaanahu wa tacaala. ujeeddada aynu leenahay iyo muhiimadda aynu leenahayna waxa weeye ma aha mid mucaarid iyo mid xisbi iyo mid hebel toona ma aha.
waxa weeye beesheennii iyo beelaha kale inala deriskaaba inaynu isu soo dhoweyno salaan kadib mahad ilaahay baa leh allaha nimcada badanayna koobi karayna siiyaba mahad alxamdulilaahi rabbil caalamiin mahad labaad waxaan u naqaynaa qiimaynaynaa inankan casuumadda inoo sameeyey ibraahim aadan awqoobey na waan u mahadnaqaynaa intaa kolkaan ka gudbo inankan sameeyey casuumadda iyo reerkooduba dee isxaaq tala wanaagsan iyo arrin wanaagsan iyo casuumad wanaagsan iyo sooryo wanaagsanba soo laguma ogeyn weligood waa lagu yiqiin dee soo maqli maysid waa wax lagu yiqiino dhalan u lahaayeenoo casuumaddanay maanta sameeyeen waa tii ay dhaqanka u lahaayeen horta waana mahadsan yihin anigu dee waxaad leedihiin laba beelood bayna casuumeen xag kale marka laga eego qurba joogtii iyo ganacsatadiiba wayna casuumeen ganacsatadii ibraahim ina jees baa ugu horreeyey qurba joogtiina siyaasi ibraahim aadan qoobey ayaa ugu horreeyey waxaan leeyahay hadda guddidu sidii tii hore dee kolley waxaad moodaa tii horeba xagga waxa laga cabinaya in dhagaha ay xidhatee dhagaha fura dadku way soo socdaan dad badan oo qurba jooga ayaa inala soo hadlaya telefoonnada qaban maysaan annagu kolley waxaanu idiinnahay nusdambeedkiioo xidhiidhka guddida fulinta ale laakiin waanu dila shaqaynaynaa ibraahimna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo beesha isxaaq waxaanu leenahay ibraahim casuumaddaadii jasaakum allahu khayr mahadda koowaad ilaahay baa iska leh mahadda labaadna waxaa iska leh ibraahim aadan awqoobey oo maanta inoo sameeyey martiqaadkan kolley aniga laba farxadood bay ii tahayoo mar waxaan ku faraxsanahay taageerada uu inooga muujiyey ibraahim aadan awqoobey isaga iyo qurba joogta kale la joogtaaba dibadda iyaga oo joogay america halkaa inaga soo macsuumay waa taageero taa waan ku faraxsanahay taageer ahaanta guddida mid kalena waan ku faraxsanahayoo magaca beesha aan dee ka tirsanahay isxaaq arre oo macsuumaddan maanta fidisayoo goolkii hore markii uu ka gaadhsiiyey jees oo rugnigii weynaaye ee garxajisa ciidaga halkan deganaaya goolka hadduu dubisna u laaday isu dheelatir weeyaan taana waan ku faraxsanay labadaa farxadood baan ku faraxsanay